وبركاته ورقيارته soo dhawaada maanta insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan eegno codkii tobanaad oo la geliyo shutdownka dowladda Mareykanka ay ku jirto kadib markii ay ismariwaa xoog leh uu soo kala dhexgalay dimuqraadiga iyo republikaanka ama xisbiga jamhuuriga oo hadda isagu talada haya maanta waa maalinkii 15aad oo dalka Mareykanka uu ku jiro shutdown marka maadaama ay tahay maalinkii 15aad waxaan rabnaa inaan fiirino waxa ka soo kordhay xaaladaha sidee isu bedeleen maxaa maaragtay xagee wax marayaan haddii aan ku bilaabo maanta waxaa soo baxay warar fara badan codka tobanaad ee la geliyey oo maanta senatka iyo aqalka sare ee Mareykanka iyo aqalka hoose ay qaadeen waa maalinkii tobanaad oo la codeeyo marka maalinkii tobanaad maadaama ay ahayd oo ama codkii tobanaad oo loo qaado shutdownka in laga saaro dowladda federaalka ee Mareykanka waxaa dhacday in la isku afgaran waayey absolutely waa la isla dhaafi waayey republikaanka ama xisbiga jamhuuriga ayaa wuxuu u baahan yahay 5 cod in uu ka helo dhanka dimuqraadiyiinta iyaguna hal tallaabo ah kama aysan qaadin meeshii ay joogeen ayay maaragtay u fadhiyaan tallaabo kama aysan qaadin arrinkaa isaga ah marka odayaasha 5 cod bay u baahan yihiin 5tii codna waa la'yihiin weli dimuqraadiga iyo jamhuuriga horta maxay isku haystaan oo dalkan shutdownka loo geliyey aan isweydiina marka hore waxaa la isku hayo waxa waaye dimuqraadiyiinta ayaa waxay ku adkaysanayaan in barnaamijkii Obamacare weli la sii wado oo dadka dhaqaalahooda uusan gaarsiisnayn in ay gataan insurance ku filan laakiin ka koreeya inta loogu talagalay kaarka caafimaadka ee dowladda ee Medicaid-ka baa waxay rabaan in ay u daayaan programkii ahaa inay helaan discounted health care programkii uu soo sameeyey waagii hore madaxweynaha Obama markii hore tookadii hore ee Trump uu joogay wuxuu isku dayay inuu programkaas baabi'iyo cod ku filan wuu waayey haddana oo ay ka soo wareegatay 4 sano oo Biden uu haystay oo dad far badan ay ku soo biireen programkan Obamacare dadka shaqaysto ay ka faa'iideystaan discountina ay ka helaan waxay republikaanka ama jamhuuriyiinta waxay dareemayaan in arrinkan uu xididaystay dad far badanna ay ku jiraan oo hadhow codad badan ay ku weyn doonaan haddii ay ogolaadaan in la tirtiro programkan Obamacare marka waxa la isku hayo oo uu dhan oo ugu xoog badan waxa waaye labada xisbi dalka ugu waaweyn ay isku hayaan oo ismariwaaga xoog leh uu ka imaaday waa Obamacare hal la daayo oo dimuqraadiyiinta ay ku doodayaan iyo Obamacare la deynmayo waan baabi'inaynaa programkaas iyo programyo kale oo waliba kaararka caafimaadka ah baan rabnaa inaan hoos u dhigno marka isqaqabsi fara badan ayaa ka jira 5 cod way la'yihiin nimanka odayaasha ah marka programkan shutdownka ah oo dowladda Mareykanka inaysan haysan wax budget ah oo ay ku shaqeyso maxaa dhibaato ah oo ay keentay haddii aan fiirino stateka Minnesota oo aad wada ogtihiin dadka ugu badan ee Soomaaliyeed ay degan yihiin ayaa waxa ay joojinaysaa baa la yiri in ay process garayso applicationada kaarka caafimaadka ee food stamp-ga xilliga inta lagu jiro shutdownka dowladda federaalka ah ay ku jirto marka waxa ay leeyihiin 440,000 oo qof ayaa ka qaata Minnesota kaarka cuntada dadkaas oo dhan waxa ay weyn doonaan food stamp-gii loogu soo shubi jiray marka waxa kale oo iyagana lacag la'aan ay soo food saartay oo dowladda federaalka ah ka heli jiray lacago qolyahan loo yaqaano food bankiga oo dadka cuntada freega ah siiyo marka haddii kaarka cuntada uu kaar wax ku soo dhici waayo oo shutdownkan uu sii socdo waxa ay sheegayaan wararka in kuwaasna ay lacag la'aan ku dhacdo dadkii marka food stamp-ga qaadan jiray oo danyarta ahaa oo kaarka cuntada qaadan jiray arrinkaas dhibaato ay ku noqonaysaa meeshii kale oo loo ciirsanayay oo food stamp-ga laga soo qaadanayayna iyadana waxaa soo food saarayso caqabad dhaqaale yari ah sida haddaba ay sheegeen ayna xaqiijiyeen marka waxaa socota arrimo fara badan oo is-eedayn ah
oo qof walba qof uu dusha ka saarayo labada xisbi ay dusha iska saarayaan ninka dimuqraadiga minority leaderka ka ah aqalka hoose ayaa waxa uu hadda ka hor sheegay inuu ku faraxsan yahay maalin kasta oo shutdownka lagu sii jiro iyaga oo sida isaga uu rabo ama uu dadka ka dhaadhacsiinayo Amerikaanka ah faa'iido ay u tahay maadaama uu ku xisaabtamayo haddii November 2026 la gaaro inay cod fara badan ay ka helaan meeshaas marka arrimahan waa adag yihiin meel adag bay maraysaa maanta madaxweynaha wuxuu approve gareeyey in FBI-da Federal Bureau of Investigation budgetkooda iyada aan la taabanaynin oo macnaha shaqaalaha dowladda federaalka ah oo ay ku dhacayso jeeg la'aanta ma noqonayaan ha yeeshee qolyahan TSA-da oo kale oo eraboorada ka shaqeeyo way shaqaynayaan eraboorada security-ga shaqadii way qabanayaan marka la gaaro ama lagu heshiiyo oo laga baxo shutdownka ayaa lacagtoodii la siin doonaa qolyahaas way shaqaynayaan qolyaha traffic air controller way shaqaynayaan dadka shaqaalaha loo yaqaano essentialka oo dhan oo muhiimka u ah dowladda federaalka ah shaqadooda iyaga way qabsanayaan oo wax taas muran ah oo ka taagan ma jirto hadduu aan la idmo marka waxaa la isku haystaa oo aadka iyo aadka ay u affect garaysay waa programyadii sida Medicaid-ka oo kale dadka social security-ga qaata oo waayeelada iyo waxaas way heli doonaan programyada ay ka mid ka yihiin kaarka cuntada it's gonna run out haddii la gaaro November 1 dadka badankiis waxaa laga yaabaa in aysan u soo dhicin wax cunno ah oo kaarka cunto la'aan ay kaga dhacdo halkaas marka arrinkan way isku haystaan codkii ku filla ay u baahnaayeenna way ka waayeen si shutdownka looga baxo dimuqraadiyiinta waa laga kari la'yahay in ay u codeeyaan in ay maaragtay shutdownkan dalka laga saaro oo Trump iyo kooxdiisa programka ay rabaan loo hirgeliyo haddii programkooda loo hirgeliyo waxaa dhici doonta in Obamacare ama kaarkii discountiga ahaa la waayo inkasta oo sida aan idin sheegay kaarkaas haddii la waayo dad fara badan oo Amerikaan ah ay ku weyn doonaan kaar caafimaad taasna ay dhibaato u keeni doonto xisbiga jamhuuriga haddii arrinkan iyaga ay noqdaan qolyaha mas'uulka ka ah maadaama doorashada kursiga maaragtay November 2026 uu soo socdo waxaa kale oo maanta Mareykanka ka dhacay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wuxuu isna soo jeediyey in shaqaalaha guryaha loo diray oo hay-adaha faraha badan oo dowladda federaalka ah ka shaqaynaya oo ilaa 10,000 oo qof gaarayo waxa uu soo jeediyey in shaqada lay off laga siiyo marka haddii lay off lagu siiyo oo shaqada laga joojiyo lay offka fire ma aha hadhow waa soo noqon kartaa markay shutdownka laga baxo oo budgetka ay helaan dowladda federaalka ah waa soo noqon kartaa laakiin in the meantime baysan lacag ku siinaynin oo aadan ku lahaan doonin wax xuquuq ah dadka hadda sidaan idin sheegay TSA-da oo kale oo shaqaynayo traffic air controllers oo kale kuwa diyaaradaha kala haga qolyahaas waa essential markay shaqeeyaan hadhow jeegoodii oo u ururay ba hal mar lisku siinaya laakiin qolyahan hadda shutdownka la rabo in la siiyo uu rabo inuu lay offka siiyo madaxweynaha waxaa ku dhacayso gurigooda iska joogayaan federal employees bay ahayn dowladda federaalka u shaqaynayeen marka guriga hadday joogaan that means wax lacaga oo ay ku leeyihiin dowladda federaalka ah marka budgetka la helo shaqadooda ayaa dib loogu soo celinaya kaliya arrinkaas marka waxaa maanta ka hor imaaday 10,000 oo qof jaale madaxweyne ma ceerin kartid baa lagu yiri adiga iyo groupkaaga isla socdaba ma ceerin kartid marka judge ama xaakimad xawalay ah kolay oo federaali ah ayaa waxaa judge Susan Ilston baa la yiraahdaa oo San Francisco California joogta ayaa waxa ay ka hor istaagtay oo ka bloggaraysay in dadkaas dowladda federaalka u shaqaynayay xilligan adag oo lagu jiro in aan la faargareyn karin bay tiri oo shaqada aan laga ceerin karin so waxa ay siisay temporary restraining order bay ka qortay taasna waxa ay ku bloggaraynaysaa baa la yiri job cutska shaqada in aysan cut garayn karin right now inta lagu jiro xaalkan hadda lagu jiro maadaama dadkan ay yihiin dad federal employees ah oo dowladda federaalka ah u shaqaynayay intaad lay off siiso
hadhowna iskama soo celin kartid bay tiri arrinkan waxaa ka hoos garanaysaa bay tiri kolley waa iska garan kartaa San Francisco hadday joogto federaal way tahay jaajka haddana kolley waa dimuqraadiyad oo dadkan xisbiga jamhuuriga ka soo horjeedo bay iyadu la gurub tahay marka waa laga diiday ciidamada dowladda Mareykanka iyagu jeegooda way qaadanayaan baa la yiri oo kuwaas militariga iyo Pentagonka ma affect garaynayso FBI-da wax saameyn oo ku yeelanayso ma jirto oo jeegooda iyagana waa qaadanayaan dadkaas 10,000 oo qof ana waa la soo badbaadiyay maadaama jaajkaas ay ka hor istaagtay inkasta oo siyaasadda hadda markaad fiirisid Mareykanka wax kasta oo ku adkaada administrationka maamulka hadda jira waxa ay sameeyaan maxkamadda federaalka markii soo rogto injunction noocaas oo kale ah waxay ka qaataan appeal hatta haddii court of appealka maxkamadda appealka racfaanka ay ku soo raacda maxkamaddii hoose oo go'aanka ay ka soo horjeedo dowladda federaalka ah badana madaxweynaha iyo kooxdiisa hadeer waxaa caado u ah inay geeyaan Supreme Courtiga maxkamadda ugu sarreysa halkaas oo gacanta sare iyagu ay leeyihiin marka dowladda Mareykanka systemkii ahaa checks and balances oo ahaa maxkamadaha iyo maaragtay legislationka oo dowladda sharci dejinta ahaa iyo executive-kii waxaa badanaa decisionada iyo go'aanada isla qaata executive-kii oo madaxweynaha iyo maaragtay xukuumadda ah iyo waxaa isla qaato maxkamaddii sare oo judicialkii bay gacanta ku hayaan so mar kasta oo xaaladda jaqo ay ku noqoto Supreme Courtiga ayuu la aadaa madaxweynaha iyaga ayaana codka soo siiya oo lagagamana daba dhufto waa ogtihiin wax kasta ay Supreme Courtiga maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka ay go'aamiso gadaashood lagama hadlo marka arrinkan shalay oo kala fiiri waxaa la qabtay codkii 9aad oo markii 9aad baa loo codeeyay arrinkan in laga baxo laakiin isla maanta waxaa dhacday codkii 10aad mar kasta waxay isku dayayaan senatarada in ay soo helaan 5 cod oo dimuqraadi ah waana u shaqayn ladahay mar kasta ay isku dayaanna way ku guuldaraysanayaan qolyahan hadeer republikaanka ah oo haysta weliba aqalka sare iyo aqalka hooseba iyaga ayaa haysto so waa markii 10aad oo cod loo qaado iyo maalinkii 15aad oo dalkan uu ku jiro shutdown shalay oo kale marka shalay waxaa dhacday ninka u haysta oo speakerka ah meesha Cabdi Xaashi anaga uu noo joogo senatka ninka haysta oo republicana ayaa la wareystay marka wuxuu sheegay in shutdownkan uu noqon doono kii ugu dheeraa abid inuu noqon doono buu maaragtay ku nuxnuuxsaday sababtoo ah annagana diyaar uma nihin buu yidhi in aan ka soo guurno ama ka soo dhaqaaqno meesha aan joogno oo ah in Obamacare la tuuro ayagana diyaar uma aha in ay concession ka qaataan oo ay ka tanaasulaan arrinkan ay ku dhegan yihiin oo ah kaarka caafimaadka oo discountiga ah in dadka shacabka ah loo daayo marka ismawari waa xoog leh ayaa ka jira waan ogaani doonaa waxa ka soo kordha laakiin so far hadeer programyada ay affect garaysay waan idin sheegay hataa Minnesota kaarka cuntada waa la joojin doonaa haddii uu sii jiro programkan haddii by November 1 bisha November ay soo socota koodeeda haddii ay gaarto oo weli aan wax dhiil laga gaarin kaar food stampia oo kaarka cuntada oo wax ku soo dhacayaan kama jiri doonto baa la yiri shaqaale fara badan oo federaalka ah baa iyaga guryahooda iska jooga inkastoo usaan idin sheegay maanta ay ku badbaadeen jaajkaas go'aamiyey in aan la faargarayn karin dadkaas xilli lagu jiro shutdown lagu jiro oo xaaladdu hadeer ay adag tahay xilligan ogama faa'iideysan kartaan baa la yiri dadka inaad faargaraysaan ama shaqada aad ka cayrisaan eraboorada waxaa dhacday in eraboorada badankood si caadi ah ay u shaqaynayaan TSA-da iyo air traffic controllerska labadaba caadi bay u shaqaynayaan so intaas ayaa maanta ka cusub arrimaha shutdownka 15 days buu marayaa codkii 10aad baa la geliyey waa arki doonaa qolada soo dabacda iyo sida ay wax noqdaan hadduu ilaahay idmo waa mahadsantihiin dhammaan asxaabta igala soo qayb gashay live-kan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh